عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararkeena waxa ugu waaweyn caawa dawladda Ruushka ayaa sheegtay in dhici karto kulan kale oo dhexmara madaxweynayaasha Putin iyo Trump inkastoo aad loo dhaleeceeyay sidii uu Donald Trump u maareeyay kulankii Isniintii hore waa jasiiradii jannada ahayd baa la leeyahay qaxoontiga Yemen ka soo firxaday ayaa Kuuriyada Koonfureed soo gaadhay laakiin talow meeshu sidan ay u eg tahay madhaba shimbirba ma diyaaradba mise waa beluga diyaaradda xamuulka qaatay ee Airbus ee cusub ayaa cirka maaxaysa waa caawa iyo caawada tiknoolajiyada iyo click aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu doonayo inuu ku soo casuumo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin magaalada Washington tabayaaqada sanadkan walow dhaleecayn joogto ah lagu waday shirkii uu kula yeeshay magaalada Helsinki maalintii Isniintii aynu soo dhaafnay bilowga wada hadallada ku saabsan booqashada ayaa dad badan oo ay ka mid yihiinba agaasimaha sirdoonka qaranka Mareykanka waxay ku noqotay lama filaan iyo ficiciso laakiin madaxweyne Trump ayaa difaacay isku dayigiisa inuu wanaajiyo xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka waa kan Axmed laamaha sirdoonka Mareykanka weligood kama aysan wareeganin inay aaminsan yihiin in Kremlinka uu farageliyay doorashadii 2016 in weerar dhanka internetka iyo olole akhbaar qaldan ah uu u maray iyo in Ruushka uu wali sii ahaanayo halista dimuqraadiyadda Mareykanka laakiin aragtida Donald Trump uu qabo way adag tahay in la yareysto wuxuu sheegay in hadalka uu ka qaldamay markii uu taageeray diidmada Vladimir Putin ee hadalka madaxdiisa sirdoonka balse waxa cad in wali uu doonayo xiriirkiisa Ruushka inaanu ishello madaxweyne Putin iyo soo dhaweynta Ruushku waa arrin fiican waxuna maaha laakiin ficiladiisan dhawaan waxa ay ka careysiiyeen saaxiibadiisa waxaana laga diiday Washington sanadka waxa uu si aqlabiyad ah ku ansixiyay mooshin lagu diiday qorshaha Trump ee Ruushka oo su'aalo lagu weydiinayo saraakiil Mareykan ah kadib markii Trump uu u muuqday inuu danaynayo wali iyadoo la isku khilaafsan yahay shirkii muranka dhaliyay ee Helsinki madaxa warfaafinta ee aqalka cad wuxuu Twitterka ku shaaciyay in Trump uu la taliyihiisa amniga qaranka ka dalbaday inuu Washington ku casuumo madaxweyne Putin waxaana wali socdo wada hadallada arinta si kastaba taasi waxa ay la yaab ku noqotay agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka waa hagaag taasi waxay noqon doontaa arrin xiiso leh wali waxa taagan su'aalaha ku saabsan arinta Trump iyo Putin ay uga wada hadleen Helsinki si gaar ah markii shirka albaabada ay u xiran yihiin ay yeesheen dimuqraadiyiintu waxay sheegayaan inta taasi la kala cadeynayo inuusan jiri doonin kulan kale oo toos ah Washington ama meel kale ay ku yeeshaan labada madaxweyne faahfaahin dheeraad ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga bbc.com/somali adigoo ka galaya moobilkaaga dagaalka dalka Yemen ka socda waxa uu sababay barakac ballaaran 3 sano ee ugu dambeysay laakiin hadda boqolaal qaxoonti oo reer Yemen ah ayaa u socdaalay 8,000 oo kiiloomitir si ay amaan u helaan jasiirad ku taala Kuuriyada Koonfureed ayay gaadheen laakiin markay halkaasi tageen si wanaagsan looma soo dhaweynin Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya tani waa jasiiradda Jeju goob dalxiiska caan ku ah dalka Kuuriyada Koonfureed dhulkan qurxoon ee jasiiraddan oo visa la'aan lagu soo galo waxa uu sanad walba soo jiita kumanaan dalxiisayaal ah laakiin waxa dadka waddankan aad uga yaabiyay koox soo galooti ah oo aan la filayn We have run from war. waxaanu ka soo cararnay dagaal iyo geeri We just came here in peace. waxaanu halkan u nimid nabad iyo nolol wanaagsan ninkani waxa uu ka mid yahay in ka badan 500 oo qaxooti Yemen ah oo jooga Jeju South Korea was one of Kuuriyada Koonfureed waxay ka mid tahay dalalka u ogol dadka reer Yemen inay ku soo galaan fiisa la'aan kaabayaashii Yemen waa la burburiyay waxbarasho ma jirto iskuulo ma jiraan koronto ma jirto xitaa biyo nadiif ah oo la cabo lama heli karo
550 Yaman ah ayaa magangelyo ka dalbaday Jeju sanadkan 2018. Dowladda deegaanka ayaana ka caawinaysa inay shaqooyin ka helaan maqaayadaha. Shaqooyinku waxa ay gacan siiyaan qaxootiga inta ay socdaan codsiyadooda magangelyo. BBC-da ayaa la kulantay qof ka shaqeeya kiisaska qaxootiga ka yimid Yaman. tirada qaxootiga laga aqbalo Kuuriyada Koonfureed way ka yar tahay 5%. Way ka yar tahay 2%, sax? waa 3%. sidaas daraaddeed 97% waa la diidaa codsiyadooda. tirada qaxootiga ee Yaman waa ay ka bateen dadka deegaanka. Banaanbaxyo ayaana la qabtay lagu baaqayo in la joojiyo fiisa la'aanta waddanka lagu yimaado. in aad nacdid adiga oo aan aqoon ma aha sax. waan jeclahay inaan laabto, laakiin xaaladda Yaman ma wanaagsana. Jeju hadda waxa ay ka saareen Yaman liiska dalalka loo ogol yahay fiisa la'aanta in ay ku yimaadaan fiisa la'aan. halkan uma aanan imaan inaannu dhibaato samayno. waxaannu u nimi inaannu shaqo helno. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. hogaamiyaha Jarmalka Chancellor Angela Merkel ayaa ku nuuxnuuxsatay in la ilaaliyo xidhiidhka Mareykanka iyo Jarmalka u dhaxeeya inkastoo imka ay xurgufo yar jiraan. waxayna sheegtay in Mareykanka iyo Jarmalku ay tahay inay wada shaqeeyaan. waxa kale oo ay intaasi raacisay in loo baahan yahay in midowga Yurub uu dadaalo mar haddii aan Mareykanku sidii hore caalamka ugu talin. madaxweynihii hore ee ceeboobay ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu xukumay 8 sano oo xadhiga oo dheeraad ah. Park Geun-hye ayaa lagu helay inay ka qaadatay wakaaladda sirdoonka $2 milyan isla markaana inay faragelisay doorashooyinkii 2016. haweeneydan oo 66 jir ah ayaa 24 sano hore lagu xukumay musuqmaasuq iyo ku tagrifal awoodeed oo lagu helay awgeed. waxaan dib u bilaabmay baadigoobka iyo hawlgalka la rabo in lagu badbaadiyo dadkii ay la degtay doontii harada gobolka Missouri ee Mareykanka. 13 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen. ilaa hadda 30 qof ayaa saaraa doontaasi. biyaha iyo berrigaba way mari jirtay. dabeyl xun ayaa ku dhufatay deegaanka harada Table Rock. booliska ayaa sheegaya in dadka dhintay qaar ka mid ah ay carruur ahaayeen. adeegga WhatsApp-ka ee fariimaha qaada ayaa tijaabinaya sidii uu xakameyn lahaa adeegiisa dalka Hindiya. waa tallaabo la rabo in lagu yareeyo faafinta balaayada iyo kutirkuteenka. tani ayaa imanaysa kadib markii ay dhaceen dhowr shil oo 15 qof lagu dilay, kuwaasi oo ay sabab u ahayd warar la isla dhex qaaday oo beena oo sheegay in carruur la afduubay. Allah u naxariistee Yoonis Cali Nuur, rugcadaagii saxaafadda muddo dheerna BBC-da ka soo shaqaynayay, ayaa xalay ku geeriyooday magaalada London. marxuumka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xanuunsanayay. haddaba Yoonis wuxuu bishii Juulaay ee sanadkii hore ka qayb galay dood lagu xusay 60 guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay BBC-da laanteeda afka Soomaaliga, waxaana uu ka sheekeeyay sida uu saxaafadda u soo galay. anu waxaan dalbaday inaan film actor noqdo. dadka filimada jila ayaan qortay beriga oo waxaan u malayn waxaan jeclaan jiray filmadan cowboy-ga la yidhaah. oo markii ugu horreysay film cowboy aan daawado ay ahayd halkan Arabsiyo. inkastoo runtii markii camuudan ku jirnay inteen dee isku wada faacbaynu ahayd maca xagga shaqada oo meel baa laynu wada qoray. ani iyo Allah u naxariistee Axmed Xasan Cawke iyo nin Maxamuud Sheekh Axmed Taani loola jiro isna Canada tagay. Dr. Maxamuud Awdaahir Afqarsho imika Mareykan joogo dhakhtar noqday. buurtii yareeda camuud intaanu fuulno ayaanu matili jiray raggi beriga hadli jiray Xuseen Bulaale iyo raggii ka hadli jiray meesha Cusmaan Xasan iyo ninkii kale isna dalabaadka sheegi jiray Ismaan Sugulle ayaanu matili jirnay. laakiin beriga madaxa kumaan hayn idaacad baad ka shaqayn doontaa. haddaba Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo muddo ay isla soo shaqeeyeen saaxiibna ahay Yoonis Cali Nuur ayaa ii sharaxay waxa uu ku xasuusanayo saaxiibkii. Yoonis
naxariista jana allah ka waraabiyo horta marka aydna isgaranayno iska hortimaadaan waxay isleedahay ha iskula hadleen ninka dabeecad xun ma jiro ba isleedahay muuqaalka hore oo aad ka qaadanaysid kaasuu ahaa laakiin markaad isbarataan shakhsi bini aadana oo ka qosol iyo kaftan iyo sheeko badan iyo xikmad iyo tusaale iyo mahmaahyo iyo wuxuu ahaa shakhsi aad iyo aad u sarreeya waxaa kaloo Yunus aan runtii aad iyo aad ammaan gaar aan ugu siiyaa dulqaadkii uu u sameeyey ilaa dhowr boqol oo wariye oo wax kaga tababaray dhulka Soomaalida oo dhan sida maaragtay wariyaashaasi kuwa badan oo ka mid ah maanta saxaafadda Soomaaliya kaalin fiican waliba ay kaga jiraan oo tababaradaasna aad loogu amaano oo wariyaal badanna ay ku xasuusan yihiin dhalinyarada hadda waliba soo kacday gabdho iyo wiilalba cabdinuur sheekh maxamed isxaaq oo ka hadlayay geerida Yunus Cali Nuur Allah u naxariistee caawi ciyaaraha haddii aan u baydhana goolwalaha reer Brazil ee Alisson ayaa noqday goolwalihii ugu qaalisanaa caalamka waxa uu ku soo biiray Liverpool isagoo ka soo digay rogtay Roma waxa la sheegay inay ku bixiyay 680 milyan oo dollar inkastoo aan Liverpool shaacin waa ciyaartoy 25 jir Brazil ayuu ciyaaray koobkii adduunka ee dhawaaba tababaraha cusub ee Spain Luis Enrique ayaa shirkiisii jaraa'idii ugu horreeyay qabtay waxaana uu sheegay in isbedel weyn oo kooxdiisa dhici doonin waa maamulihii hore ee Barcelona waxaana uu xilka kala wareegay Julian Lopetegui oo 2 cisho ka hor koobkii adduunka xilka laga qaaday ninkaasi ayaa xilka ku waayay markii uu Real Madrid iskala xiriiray isagoo wargelin xiriirka kubadda cagta Spain ayaa ka hadhay koobka caalamka Ruushka ayaa jiiday Enrique ayaa sheegay inuu si yar wax u bedeli doono xagga gawaadhida dheeraysana Valtteri Bottas ayaa la joogaya Mercedes iyo saaxiibkii Lewis Hamilton 2019 darawalkan Finland u dhashay ayaa hal sano loo kordhiyay kontraadkiisa iyadoo uu joogi karo inta la gaadhay 2020 haddii uu doono Hamilton ayaa isna kontraadkiisu gaadhay ilaa 2020 darawalkan Britishka ah ayaa laakiin Vettel oo wada gaadhiga Tayaaniga Ferrari uu ka horeeya 8 dhibcood tartanka sanadkan caawana waa caawadii tiknoolajiyada waxyaabahan idinku haynana waxaa ka mid ah drone casri ah nibiri hawada loo dirayo iyo Scotland oo xagga xidigaha cirka eegaysa waa tan Caaisha Afrax diyaaradaha droneska ayaan dhawaan u baahnaan doonin in la hago cilmi baarayaasha Switzerland ayaa sheegay in jirka laga hago droneska ay ka fududahay mid gacanta qalab jirka lagu xiro oo dareemaha ku shaqeeyo ayaa ka dheereeyay gacankii laga hagi jiray marka mustaqbalka duulimaadka ayay u egtahay inuu heer sare gaari doono shirkadda Beluga diyaaradeeda cusub ee aadka u weyn ayaa si guul leh uga degatay Faransiiska duulimaadkeedii ugu horeeyay diyaaradan cusub oo loogu magac daray xayawaanka nibiriga ayaa alaab gaaraysa 50 tan qaadi karta waxayna howlgali doontaa 2019 iyadoo lagu qaadi doono qaybaha diyaaradaha dhul ballaaran oo ku yaala xeebaha waqooyiga Scotland ayaa noqon doono xarunta hawada sare looga duulo ee UK hay-adda hawada sare ee dalkan ayaa 4 milyan gelinaysa in hawada loo diro dayax gacmeedyo yaryar 4 sano gudahood dowladda UK ayaana sheegtay in Martin Lockheed oo u dhashay Mareykanka uu hogaamin doono mashruuca waxaana laga fili doonaa in 6 dayax gacmeed uu hawada u diro sanad kasto miyaad jeceshahay dhirta mase garan la'dahay halkay ku qurxoonaan lahaayeen gurigaaga dhexdiisa hadda waxaad shaqaalaysiin kartaa robotkan la yiraahdo Hexa waxayna ka shaqeynaysay toddobaadkan habab ay ku daryeesho dhirta iyadoo banaanka u qaadaysay si ay u soo qoraxaystaan kuna xusuusinaysa marka ay biyaha u baahan yihiin sidoo kalena ciyaaraysa marka ay dhirtu faraxsan tahay balcaawan aan ku soo gabagabeeyo xaggaas iyo Latin America iyo dalka Ecuador oo rajeynaya inay rikoodh cusub dhigaan waa bandhig cajiib oo ubaxyada ah ama ubaxa cas ee halista ah waxay rabaan inay ku guuleystaan meesha ugu ubaxa badan in loo qorbay leeyihiin waa ubax ka baxaya buuraha dhaadheer ee caanka ah ee Andiska leeyahay wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogga bbc.com/somali waxaa kaloo nagala socon kartaan Facebookga iyo Twitterka BBC-da barnaamijkeygii caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin intaynu kulmayno isniinta nabadgelyo